kulan wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada bartayda qodobada aan idinku hayno waxaa ka mid noqonaya Puntland oo eedeyn culus u jeedisay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. howlgalo kala duwan oo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay ka sameeyeen jubbooyinka ayaan idiin soo gudbin doonaa sida ay isla mid ah waxyaabihii ugu waaweynaa ee looga hadlay kulankii Qaahira ku dhex maray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale xidhigiisa dalka Masar Cabdifataax Al-Sisi. qodobada ay wixii nagu soo kordhaa ayaan idiin soo gudbin doonaa kama marna dowladda Mareykanka oo iyadu 1500 oo askari gaar ahaan kuwa militariga geynaysa xadka Mexico ay la wadaagto. qodobada ay wixii nagu soo kordhaa ayaan idin la wadaagi doonaa saaxiibayaal. isku soo noqod wanaagsan saaxiibada qiimaha badan haddii bartaana aad ku cusubtahay waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe inoo saarto. saaxiibada halkaan horey nagula saaxiibana waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin. faahfaahinta qodobadeeda haddaan galno maamulka Puntland ayaa eedeyn culus waxa uu u jeediyey dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Ilyas Lugtur oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay dagaalkii ay la galeen kooxda Daesh in dowladda federaalka Soomaaliya wax taageero ah oo dhan walba aysan ka helin. waxa uu tilmaamay madaxweyne ku-xigeenka Puntland dhaawacyadii kala duwanaa ee soo gaaray ciidamada maamulka Puntland in dowladdu aysan ka caawin in dhaawacyadaasi iyadu dalka dibadiisa ay u qaado, balse waxa uu sheegay in dowladda Ethiopia ay ka caawisay in dhaawacyadaasi lagu daweeyo dalkeeda. Ilyas Lugtur ayaa isagu waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya laga filayay in isbedel dhinaca ay ku sameyso ciidamada iyo sidoo kale in taageero buuxda ay ku garab siiso maamulka Puntland oo la dagaalamaya kooxda Daesh ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Ilyas Lugtur. Puntland muddooyinkii u dambeeyay waxa ay dagaal xooggan kula jirtay kooxda Daesh iyadoo Puntlandna inta howlgalladaas ay socdeen dhowr goobood ama dhowr fariisin ay kala wareegtay kooxda Daesh oo halkaasi ku dhumaalaysanayay sanadihii u dambeeyay. Puntland hadda waxa ay tilmaantay marba haddii dowladda federaalka Soomaaliya aysan garan waajibaadka ka saaran maamul hoostaga inaysan garab siin iyagu ay isku tashan doonaan oo ay la macaamili doonaan cid walba oo ay markaa u arkaan in ay ka garab siin karto taageeradii sidoo kale dagaalka lagula jiro kooxda Daesh. Puntland iyo sidoo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya labadii sano u dambeeyay waxa ka dhaxeeyay khilaaf aad u xooggan oo ay adkaatay in la xalliyo. madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa midka kale waxa uu ku eedeynayay muddadaasi in uusan diyaar u ahayn in uu la shaqeeyo. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku eedeeyay Saciid Cabdullaahi Dani inuusan diyaar u ahayn in wada hadal iyo sidoo kale in la dhameeyo madmadowga jira halka Saciid Danina uu ku eedeynayo dowladda dhexe ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ba in ay gabeen kaalintoodii isla markaana ay ku tumanayaan dastuurka iyaguna inta arrimaha ay dowladda ka laabanayso ama ay ka garaabayso inaysan diyaar u ahayn in guud ahaanba wax laga qabto arrimaha. khilaafka ayaa la ogeyn halka sida rasmi ah ugu biyo shuban doono iyadoo madaxweynaha ay u hartay sanad iyo dhowr bilood marka la eego muddo xileedkiisa. waxayna noqonaysaa 4 sano oo xiriir ah in ay ama uu taagnaadaba khilaafka kala dhaxeeya Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. arrintan dhowr jeer hore waxaa la isku dayay in xal laga gaaro balse waa ay suuroobi weysay. Puntland markaan waxay u muuqanaysaa inay sii fogaanayso marka la eego. qodobo dhowr ah oo xiiso badan ayaa inoo soo socda. duulimaadyadii dhinaca gudaha iyo sidoo kale dibadda ee Muqdisho ayaa weli xaniban, dad badan ayaanan u suuragelin maanta inay safraan kadib markii ay isku dhaceen ama ay isqabteen wasaaradda duulista wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo sidoo kale shirkadaha diyaaradaha ka shaqeeya. shirkadaha ayaa ku eedeeyay wasaaradda in iyadu ay dul dhigtay lacag aad u fara badan taas oo aysan suuragal ahayn in iyagu ay bixiyaan, halka lagu eedeeyay gudoomiyaasha ama xubnaha mas'uulka ka ah diyaaradaha in iyagoo diyaarad aysan lahayn in haddana caqabad ay noqdaan. waana arrin caqabad ku noqon karta marka la eego maadaama weli wax xal aan laga gaarin isla markaana diyaaradaha gudaha iyo dibaddaba 20 bisha la joojiyay. waana arrin khatarteeda leh maadaama safarada dalka iyo dibaddaba ay yihiin kuwo muhiim ah oo ay jiri karaan dad iyagu qaba dhibaatooyin kala duwan oo dhinaca caafimaadka kuwaas oo u baahan in ay ku safraan hawada. markaana haddii aan u fiirino dalka Masar gaar ahaan magaalada Qaahira waxaa ka dhacay kulan ay wada yeesheen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale dhigiisa dalkaasi Cabdifataax Al-Sisi. kulanka ayaa looga wada hadlay sidii guud ahaanba labada dowladood ay isaga kaashan lahayd difaacidda badda cas iyadoo labada dhinacba ay ka wada hadleen sidii guud ahaanba loo xoojin lahaa iskaashigii saddex geesoodka horay
ay u wada galeen dowladaha Soomaaliya, Masar iyo sidoo kale Eritrea. Cabdifataax al-Siisi ayaa waxa uu sheegay in diyaar u yahay in mar walba dowladda federaalka Soomaaliya uu ka caawiyo dhanka militariga sidii guud ahaanba ay isaga caabin lahayd ama ay si buuxda ammaankeeda u xaqiijin lahayd. Masar dhowrkii bilood u dambeeyay waxa ay dalka Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho ay ka soo dejinaysay sanad military oo loogu talagalay in lagu adkeeyo difaaca ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya. guud ahaan warkii aad kala socoteen halkan waa naga intaa wixii ku soo kordha kuwa soo hadana aad ku daawan doontaan mahadsanidin.